haddaba codbixintii baarlamaanka ee shalay ma ku dhacday hab sharci ah eedaha loo jeediyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre ma yihiin kuwa meesha ku jiray halkee ayayse tahay in meeshan looga dhaqaaqo su-aalahan iyo kuwo kale ayuu haaruun macruuf weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke. waa maasantahay haaruun, runtii shalay waa kulley horta baarlamaanku waa waajibaadkiisa xukuumadda inay ansixiyaan iyo xukuumad ka qaadaan inay la xisaabtamaan intaas waa u leeyihiin. laakiin habkii shalay hadda loo maray ka qaadista waxaa moodaa inay ahayd hab aan raacsanayn xeer hoosaadka baarlamaanka oo ah dee xukuumadda marka hore mooshinna laga keeno la siiyo fursad ee iyada maaragtay isku difaacdo waxyaabaha lagu soo eedeeyey, kadibna codayn la geliyo markii adigu xildhibaanadii soo eedeeyey ee iyaguna hadlaan markaa in codayn la geliyo oo maaragtay codayntaasi ay xukuumadda ama ku dhacdo ama ay ku keesho kalsooni ee kusii wada howleeda. marka runtii xeer hoosaadka lama sugayn. baarlamaanku tirada waa laga yaabaa inay haysteen ee uga qaadi kareen sababay uga cabsadaan in mooshin la keeno anigoo ilmaha inay meesha jirteen marka waxay ahayd. laakiin xeer hoosaadkaas ina sugay sababtoo ah sideedaba annaga haddii waxyaabaha shuruucda aan ku heshiino inay nahagaan oo aan isku qadarinay inay yihiin shuruucdii markaasi aan isku qadhaqaynay haddaan la ixtiraamin oo aanan dee kalsoonida dadku institutionska dowladeed ku qabaan way yaraanaysaa. maxay kula tahay sababta ay qaab furan uga doodi waayeen, mooshin uga keeni waayeen ra-iisul wasaaraha, codkana loogu qaadi waayo qaab furan? maxay kula tahay adiga sababtaas? waxaa moodaa hadda sida aan kule aan ka arkay hadda meediada iyo eedeyn oo labada dhinacba inay socoto laleeyahay wasiiraha diiday marka saasaa maaragtay codkii horey looga galay marka hore. laakiin ajento waxa in laga doodo wax kasta waxa dhacaan mas-uuliyadeeda runtii baarlamaanka qaadaya sababtoo ah waxaa la rabay inay xeerka sida uu dhigan yahay ay maraan laga keeno waxyaabaha lagu qabsaday xukuumadda sax ma ahayn oydu waa meesheeda oo runtii waxyaabaha laga gaabiyo oo dhan yaa eedeeda iska leh waa meel kaleeto. laakiin habka loo raacay xeer hoosaadka baarlamaankii inaan la sugayn runtii xeer jabin bay ahayd wixii adigu dhacay shalay. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre labaduba waxay dhowr jeer ku celceliyeen islamarkaana waxyaabaha ay ku faani jireen marka ay noqoto wada shaqayntooda waxay ahayd inay midaysan yihiin, ayna ka duwanaanayaan qaab wada shaqayntii madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii iyaga ka horreeyey. laakiin taasi shalay bay dhammaatay. maxay kula tahay taas? maxaad ka akhrisatay? wallaahi horta dee markii horeba ayaga waxaa ka keenay inay saas dhaxaan waxay la tahay inaysan dee khibrad u lahayn dowladnimadu waxa ay tahay. moogtahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waa run waa inay wada shaqeeyaan, laakiin haddana horta annaga foundationka siyaasadeed ee dalkeena wax ka khaldinaya sababtoo ah ra-iisul wasaare waxay ahayd majority inuu keeno majorityna ka qaado. waxaa moodaa dalka ra-iisul wasaaraha parliamentary systemka ra-iisul wasaaraha ugu muhiimsanaa inuu dalka noqdo qofka siyaasadda haga. haddana annaga dhaqankeena parliamentary weeye, laakiin haddana waxaa moodaa foundationka siyaasadeed in laga hadlasiiyeen. waa imaanaysaa siyaasadda in lagu kala aragti duwanaado madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha meelo qaarkood. haddii baarlamaankana markaas oo kale waxaa loogu talagalay de haddii fakarka lagu kala duwanaa inuu asaga arrintu galo uu saxo qofka markaas uu isleeyahay aragtida dalka danbay u tahay. marka waxay la tahay hadee tii wada jooggaas iyo wixii ballanqaadyadaas kulley hadda waxba kama jiraan, waan ka duwanaanaynaa. weliba sharci jabinta iyo habka loo maray iyo sida dhaqsada loo qaaday ra-iisul wasaare hadda ka hor aysaan soo martay ma jirtaan u malaynayaa. adi hadda ka hor way kusoo martay, waad iscasishay, 2 jeer baad ra-iisul wasaare noqotay. waayo aragnimadaas ka hadal bal wax yar. horta niyo hadee horta waxa yaab leh moogtahay dalkan siyaasadeena waxa weeye mas-uuliyadii dalkana madaxweynaha haya, awoodii executive-kan ra-iisul wasaaraha haya. marka waa adiga arrin markasta u baahan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay ilaaliyaan balance siyaasadeed, isla markaasna ay runtii ku dadaalaan in hadafka iyo hiigsiga markaas dalka loogu talagalay inay ka wada shaqeeyaan. laakiin haddii wax aysan markaas aragti iyo ku kala duwanaadaan waxaa roon in labada qof uu meesha ka baxo sababtoo ah ma sii socon karo dalkana uma fiicna in
isku soo horjeed iyo maaragtay iyo muxuu ahaa ishayn uu kusii shaqeeyo anigu waxaan is leeyahay runtii niyo annaga waxaan u baahanahay dastuurkan dhexdiisa inaan inta ku shaqeyno aan runtii clarity wax la dhaho ama tafsiirno oo fasirno exactly awoodaha iyo wasaaraha waxa awood u leeyahay in madaxweynaha roolkiisa haddaynan constitution ku difaan gareen waa un imaanaysaa isqabashadan oo maaragtay markaas sababtoo ah wasaare iyo madaxweyne parliamentary system sidoodina uma dhaqmayno presidential iyo parliamentary system isku jiro kaleetaan annaga hadda u soconnaa marka taas in la saxo oo runtii dastuur ahaan loo saxo anigu waan qabaa taasaana keenaysa hadda wasaaraha la keeni doono muxuu noqonayaa muxuu wax ka bedeli karaa muuqta qodob aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan sababta xilka looga qaaday ra-iisul wasaaraha markaan ka hadlayno baarlamaanku qodobo ayay taxeen inuu ku guuldaraystay nidaamka federaaleynta inuu la yimaado hab qeexan oo doorasho qof iyo cod ay ku qabsoomi karta iyo qodobo kale dhinaca kale ee ra-iisul wasaaraha iyo taageerayaashiisa iyagu waxay ku macneeyeen in mowqifkii uu qaatay ra-iisul wasaaraha ee ahayd in muddo kororsi aysan dhicin doorashadana waqtigeeda lagu qabto inay taasi sabab u tahay maxay kula tahay adiga labada dhinac waxaa ka jira sababta waxa weeye horta midatan ah doorashada sideeda horta hoggaan waxaa laga rabaa inuu mar kasta runta u sheego dadka iyo dalka meesha wax suuroobay wax suuroobay waa sax inaan laga shaqeynin arrintii doorashada dastuurka inaan la dhamaystirin inaanan muxuu ahaa magaceedii maqaamkii banaadir inaan la samaynin waxayna ahayd sideedaba bishaan hadda July baan ku jirnaa July 2019 ugu dambeyn hadday arkeen sharciga doorashada inuu oo registrationskii dadka aan la samaynin in inta baarlamaanka la hortago la dhaho ma socon karto waqtigaas kuma qaban karno doorashada aanu raadinno sidii aniga aan yeelay aan raadinno talo kale ee aan 2021 ugu gudbi karno taana lama samay laakiin eedda wasaaraha kaligiisa qaadaya arrintaas waa qoshka meesha taagan sababtoo ah baarlamaankana waa jooga madaxweynahana waa jooga waana u wada jeedeen in waqtiga uu socdo wixii loogu talagalayna waqtigeeda inayn lahayn waqtiga registration loogu baahanaya in dadka lagu registereeyo security lagu sameeyo political agreement laga keeno inaysan ku suuroobeynin hal sano gudaheeda marka taas waxay ahayd in runtii si saraaxa ah baarlamaanka ay hor yimaadaan ay ka sheegaan ay yiraahdaan waqtiga kuma qasbanayo sidii aniga aan yeelay 2020 July 4 bilood 5 bilood anoo joogan hortagay waxa ku yeeday ma soconayso waxaan rabaa inaad fasax isiisan inaad raadino talada kale aan dalka uga saari karno sababtoo ah waxa ii muuqatay Hirshabeelle inaan sameeyay ahayd in oo galmudug aan sameeyay ahayd in aqalka sare aan sameeyay ahayd marka intaas oo dhan inaan sameeyay iyo maqaamka banaadir iyo sharciga doorashada iyo waqtigan haysta isma keenin baarlamaankan hortagay July 2015 kii waxa ay ma soconayso waxa ina isiisan kalsoonida aan ku raadin lahaa dalka waana isiiyeen madashan iyo markaas ka dhasheen waxaas marka horta laakiin eedda khayra iyo xukuumaddiisa kaliya ma leedahay anigu ma qabo baarlamaanka iyo madaxweynaha waa la qaban sababtoo ah ayaga ruuxooda waxay ahayd arrintan ilaa dalkan dawlad ayaga kulli waa dawlad hal dawlad way in arrintan waxay ahayd intay ka wada hadlaan ee arkaan ee dhahan warseed dalka uga saari karnaa waqtigiina waa nagu socdaay markaas ay xal ama benchmarks intay samaystaan ee dhahan saana wax ku wadaynaa lama dhihin saacadii ugu dambaysaa blamekii oo dhan maaragtay waxaa la saaray wasaarihii dhaqankan oo runtii Soomaalida ka jiro hadda anaga mudana na soo waday oo ah wixii fiicanna madaxweynaha leh wixii khasaaro iyo wixii khaldamada wasaaraha leh dhaqankaas wixii inaan ka talaabsano oo runtii eed la wada qaado oo muhiim weeye hadda iyo wixii ka dambeeyay iyo meesha looga dhaqaaqay halkan galmudug iyo dhuusamareeb qodobo ayaa ka soo baxay kulan kalena waa loo madlan yahay baarlamaankuna waxay sheegeen inay iyaga u taalo inay go'aan ka gaaraan nidaamka doorashada iyo qaabkii lagu geli lahaa iyo dhamaystirka sharciga doorashada guddiga doorashada iyo baarlamaanka aqalka hoose oo aad moodo dhinac inay waxyaabaha qaarkood ka siman yihiinna iyaguna waxa ay soo jeediyeen tubta la raacayo maxay kula tahay yaa ugu habboon yaa iska leh hadda wixii ka dambeeya yaa iska leh diyaarinta iyo ka wada hadalka qaabka doorashada iyo sidii lagu geli lahaa waa maxsantahay hadda horta su'aashan waa su'aasha ugu muhiimsan way hadda meesha tan
niyo horta sideeda sharciyada lagu sheegayo sharciga ruuxiisa siyaasadda haddii sharciga uusan siyaasad ahayn maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga iyo 9 qofood inta laga dhigo interpretationka sharciga ama tafsiiraadda sharciga haloo codeeyo lama dhexin marka sharciga sideeda waxa ka muhiimsan stability-ga siyaasadeed maaragtay in la ilaaliyo oo wax heshiis lagu wada yahay la gaaro hadda xaaladda taagan meel khatar aan marayna sababtoo baarlamaankiina wuxuu leeyahay waxaan ku soconayaa ilaa aan ka gaarsiiyo dalka doorasho qof iyo cod waqtigii rabtaba ha qaadatay dalka intiisii kaleeto xisbiyada siyaasadeed dadka siyaasiyiintii kaleeto dowlad goboleedyada waxay leeyihiin may waqtigeedina ku dhacdo way haddaan maanta la helin qof dhexaada oo waxaan negotiate gareeyay oo runtii aan la isku keenin labadan aragti aan wax lagu heshin kacay ka abtagaysaa dalka iyo dadkuna waa ku dhibaatoonaya runtii anigu waxaan qabaa hadda wasaaraha imaanaya habka lagu soo xulayo hadday noqoto hab hal dhinac ah oo aan wada tashi laga sameyn oo aan la cadeyn awoodaha u yeelanaya iyo waxa la rabo inuu negotiate gareeyo labadan meel rusmay wixii ka soo baxay iyo baarlamaanka bishu taagan yahayna aanan isla fahmin sidii meel dhex loo keen lahaa runtii waxa aan ku soconaa waa khatar waa anigu qolay talada hadda aan madaxweynaha siinay waxa weeye inuu consultation-ka badiyo muxuu ahaa sida lagu soo xulay in la cadeeyo wasaaraha imaanaya awoodaha uu ku yeelanayo miisaanka siyaasadeed iyo sida la rabo inuu u soo tabixiyo dalka haddii kan waxaan qabaa runtii meel crossroadan taaganahay khatara waxaa ka imaan kara runtii dib aad u weyn annagana soomaalina maanta niyadjab kaleeto diyaar uma aha ummadaas waxay rabaan in wax hore u socoto waxaan rajeynayaa haddii ilaahay inay maskaxda shaqayso in la odayeeyo in runtii laga dadaalo sidii dalka kan xasilooni u dhici lahayd ee isugu keeni lahaa meel loo negotiate gareyn lahaa meel laga aadana la aadi lahaa kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo u warramayay Haaruun Macruuf